marka dee ishaacaadku waa shay fool xun waa jariimo oo munaafiqiintu warkay baahiyeen oo hadal been muuminiintii ka faafiyeen hadiyo gooraan marka dadka xumaha faafinaya waxa weeyaan faaxishada la faafiyo muqaddimaadkeeda kamid ah in hadiyo goor dumarka inta la qaawiyo suuradoodii social media la soo dhigo waa ishaacatu faaxisha dumarkii kuwa isqurxinaya ee soo dhigaya sawirada shaaric meelaha laga daawanayo waa ishaacatu faaxisha kuwa maaragtay sawiraya ee geynaya waa ka qayb qaateen kamaradaha wata ee sawiraya dumarka noocaas ee banaanka soo dhigaya waxay ka mid yihiin kuwa faaxishada faafinaya waayo waxa muuqaalka aan banaanayn ee banaanka la soo dhigayo ee dadku ku fitnoobayo waa arrimaha la doonayo dadku inay iska ilaaliyaan marka siyaabo badan baa faaxishada loo faafinaya gaaladu waxay ka mid yihiin kuwa faaxishada faafiya oo zinadii bay faafinayaan oo qaawanaantii bay soo dhigayaan oo aflaamtii isagaaska ahaa iyo qaawanaantii rag iyo dumar isfuushan ama ragga dhexdiisa iyo luwaadkii intaa gaaladu way faafinaysaa cidda ka sii qayb qaadanaysa muslimkiina waxay ka mid tahay ishaacatu faaxisha dadka faaxishada faafinaya marka cadaab aliima bay leeyihiin adduunkana wixii dee waxa xun samaynaya zina faafinaya dee wixii xada ilaahay u jideeyey baa la marinaya aakhirana cadaab bay leeyihiin cuquubta adduunka la marinaya waxaa ka mid ah dee ilaahay subxaanahu watacaala inuu cuquubaad mariyo oo rasuulku wuxuu inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yani qoom faaxishada ma muujiyaan oo bannaanka ma soo dhigaan ilaa waxaa ilaahay ku sallidaa cudurro aan ku dhici jirin dadkii iyo ka horreeyey oo wax maantayna haysta aidiskii baa laga sheekaynaya coronaviruskaas waxaa dhici karta waxyaaba ilahay ku ciqaabayo ilay bannaanka bay soo dhigeen zinadii bannaanka soo dhigeen markaasa ilaahay ciqaab geliyey gurihii baa lagu xareeyey oo waxaa laga hayaa ilaa haddii la soo daya meeshii maaragtay ay ku tumanayeen iyo baarkii tumashada iyo naagaha iyo ragoo ay ka tumanayeen baa xidhan baarkii o dhan baa ka xidhan waxaa la halkaa ku jira waa laga yuururiyey bal waa darsi baa bal inayna hadda waa samaan guriyay ku urureen faaxishaday samayn jireen bay ka xidhan yihiin hadda waa sakaraad bay tacbaan bay taagayin oo qaar ba hadda waxay leeyihin hana la sii daayo wax kama adkaysan kara waxmaanu samaynayni haddii la doonaa iska dhinte qaar baa halkaa tagan baa lagu leeyahy marka waa ciqaab ilaahay mariyey in cudurro iyo imtixaanaad iyo fitan la mariyo faaxishada ay faafinayaan faaxishadu adduunka meesha ugu dambaysay bay gaadhay xumaa raggii baa isguursanaya way faafinayaan oo leeyihin ay ka dhigeen nidaam caalami ah oo gaaladu faafinaysa oo dadki isla ogolaadeen oo rabaa muslimka in laga dhaadhiciyo oo waxa weeyaan dumarkii baa isguursanaya faafiyaan waa faaxisho ay ogolaadeen bannaanka soo dhigeen oo adduunka ay ku faafinayaan oo ku qaylinayaan oo rabaan oo mabaadi ka dhigayaan oo la leeyahay caalamka muslimku nala jaan qaadi kari maayo waayo waxa weeyaan waxaan ogolan caalamka lama socdo waa caalam fasaaday xumaanta ay fasaadiyeen markaasaa rabayna ciqaab intuu geliy bal iska qabta maxaa soo socda la garan maayo dhibaatada hays dhaqaale burbur yani maxaan ku geeri ilaahay wuxuu taabsiyey waxaan innaba aan caadi ahayn baa rabbigay dhadhansiyey gaaladii waxaan dee muslimkiina waa la dhimanaya laakiin waxa weeyaan waa cuquubada ilahay bay ka mid tahay marka dadku xumaanta sameeyo in dadka saa loo galo